bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayarta hawada iga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii caalamka kuwoodii ugu dambeeyay adaanu kale ka daawataan page-kan waa 19 bisha Afraad 2026 maqal wareedkan soo socdo ee baydmo waxaad ku maqli doontaa macluumaad ku saabsan dowladda federaalka Itoobiya oo sheegtay in xirtay 138 ruux oo la xiriiriyay kooxaha khawaarijta ee ka dagaalama Soomaaliya intaan ku soo gudbin macluumaadka soo faahfaahsan fadlan maqaalka leega saar oo iska sheer garay aynu ku bilownay saaxiibayaal hay'adda sirdoonka Itoobiya ayaa shaacisay in howlgal qorsheysan oo ciidamada qaranku ee amniga ay fuliyeen 138 ruux lagu eedeeyay lagu soo qabtay inay la leeyihiin xiriir kooxaha Soomaaliya ka dagaalama ee khawaarijta shabaab iyo Daacish kuwaas oo la sheegay inay qorsheynayeen inay firin amni darro ka fuliyaan gudaha Itoobiya waa si warka loo dhigay howlgalkan ayaa lagu sheegay in intii u dhaxaysay 17 Abriil 2026 oo ku beegan xilliga Itoobiya bisha 9 Abriil 2018 marka loo eego taariikhda Itoobiya oo ah mid ka dambaysa dunida waxaana lagu beegsaday baa la yiri shabakad isku xiran oo ka shaqeynaysay abaabul weerar oo qalalaasay Abriil looga fulinayo dalkaasi Itoobiya wararka soo baxaya sirdoonka ayaa sheegaya in dadka la qabtay ay wateen agab kala duwan oo ay ka mid yihiin simikaaro telefoonno yaryar iyo baastoolada miinooyin AK47 iyo rasaas kale oo kala duwan oo heer abaabul oo xooggan ah waa sida warka loo dhigay mas'uuliyiinta ayaa intaasi ku daraya in eedayaashan ay damacsanayeen inay ka faa'iideystaan deegaanada ay ka jiraan xiisadaha iyo sidoo kale marxaladaha doorashooyinka ee dalka Itoobiya si ay u fuliyaan falal amni darro oo ka dhaca dalkaas sirdoonka Itoobiya ayaa waxay xuseen in howlgalladan ay ahaayeen kuwo si taxadar leh loo qorsheeyay laguna burburiyay ay sheegeen isku day halis ah oo la doonayay xasiloonida Itoobiya in lagu burburiyo inkastoo Itoobiya ay tahay mid aan xasiloon waxyaalada dambe ka soo cusbaan arrimahan iyo arrimaha kale muuqaalada dambe ayaad ku daawan doontaa fadlan maqaalka leega saaro sheer garay haddii aad YouTube-ka daawaneysaan fadlan maqaalka sheer garay nabad